noloshaada adiga ayaa leh. waxaad tahay saxaabiyad, mar walba iyo xilli walbana waxaad jeceshahay dadka wanaagsan. waxaad jeceshahay inaad wax badan ka ogaato dadkii wanaagsanaa ee kaaga horreeyay tawxiidka islaamka. sidoo kale waxaad jeceshahay dadka aan weli imaan adduunka ee kaaga dib mari doono tawxiidka islaamka. nebigaaga Muxamed sallallahu calayhi wasallam ayaa wuxuu kugu barbaariyey in islaamku uu yahay dacwo xoog badan oo xididkiisa uu ku taagan yahay carrada taariikhda. sidoo kale wuxuu kugu barbaariyey sheegashada iyo ku abtirsiga aad ku abtirsanayso islaamka inaysan soo bilaaban maalinka dhalatay adiga, ee uu soo bilowday markii ugu horreysay ee dagaalameen xaqa iyo baadilka, markii ibliis uu diiday inuu u sujuudo aabbaha aadam. loolankaasna kuma dhammaanayo adiga geeridaada. nebiga sallallahu calayhi wasallam ayaa maalin waxaa ka maqashay isagoo leh, waxaan jeclaysan lahaa inaan arko walaalahay. asxaabta ayaa nebiga sallallahu calayhi wasallam waxay ku yidhaahdeen markaas, rasuulkii allow, annagu walaalaha ma nihin miya? nebigeenna iyo rasuulkeenna Muxamed ah ayaa wuxuu ku yidhi markaas, adinka waxaad tihiin asxaabtayda, walaalahayna waa kuwa aan weli imaan adduunka, i rumayn doonana ayagoonay arkin, aniguna waxaan uga sii hormarayaa xawdka agtiisa. saxaabada ayaa waxay yidhaahdeen markaas, sidee ku aqoonsanaysaa ummaddaas? rasuulkeenna Muxamed ah wuxuu yidhi, waxay ii imaan doonaan iyagoo xubno cad oo raadka weysada uu ka muuqdo. saxaabiyadda, naftaadu waxay rabtaa taariikhaha dadkii wanaagsanaa ee aan joogin xilligii nebiga sallallahu calayhi wasallam inay maqasho, bal ii soo xaadiri qalbigaaga aan kaaga warrame. imaam axmed binu xambal wuxuu ahaa ardayga imaamu shaafici. imaam axmed binu xambal wuxuu mar walba ehelkiisa u ammaani jiray imaamu shaafici. maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa u soo martiyey imaamu shaafici, markaasna wuxuu u sameeyey martiqaad aan caadi ahayn iyo firaash uu ku seexdo. salaadii subax ayuu imaamu shaafici la tukaday ehelka imaam axmed, kadibna wuxuu dib ugu laabtay firaashkiisii. markii waaga uu bariyey, imaam axmed binu xambal ayaa gabadhiisa waxay ku tiri, aabe, qofkan ma shaaficiga aan u ammaani jirtaya? wuxuu ku yidhi haa. waxay tiri markaas, waxaan ku arkay adigoo aad u qadarinayo, anigana xalay kuma aan arkin salaad badan iyo xus badan iyo wardi badan. waxay kaloo tiri, waxaan ku arkay 3 arrimood. imaam axmed ayaa weydiiyey arrimahaas, waxayna tiri, raashinka markii la keenay sidii aan ka maqlay si ka duwan ayuu wax u cunay oo wax badan ayuu cunay. habeenkiina uma istaaginba salaad. salaadii subaxna wuxuu tukaday isagoo aan weyse qaadan. imaam axmed binu xambal ayaa markaas imaamu shaafici u sheegay waxa ay ku tiri gabadhiisa. imaamu shaafici ayaa wuxuu yidhi markaas, axmedow, wax badan ayaan cunay waa run, waayo waxaan ogaa in cuntadaadu ay tahay xalaal. cuntada xalaasha ahna waa daawo, anigana waana xanuunsanaa. cuntadaada ayaan wax badan ka cunay, taasna baahi uma yeelin ee caafimaad ayaan ka rabay. xalay uma istaagin salaad, taasna waxaa u sabab ah markii aan damacay inaan seexdo ayuu alle igu soo riday 72 mas'alo oo fiqhi ah, waxaana ku mashquulay qoridooda. midda kale ee ah inaad tukaday anigoo aan weyse qaadan, alle ayaan ku dhaartay xalay ma aanan seexan, sidaas awgeedna maba jirin wax igu qasbayay inaan mar kale weyse qaato. salaadii subaxna waxaa idinkula tukaday weysadii cishaha. imaam axmed binu xambal ayaa sagootiyey markaas. gabadhiisana wuxuu ku yidhi, imaamu shaafici, camalka uu qabto isaga oo fadhiyo ayaa ka wanaagsan midka aan qabto aniga oo taagan. saxaabiyadda, waxaa lagu abuuray inaad yeelato himo sare ee laguma abuurin waxyaabaha liito inaad ku mashquusho. imaam axmed binu xambal gabadhiisa waxay ku bartay qofka bani'aadamka inaan lagu qiimayn muuqaalkiisa. aabbaheed ugama aysan warramin imaamadda imaamu shaafici iyo dharka uu watay, kuma aysan mashquulin garkiisa iyo faraantigiisa. keliya waxay ka fiirisay diin iyo cibaado oo keliya. adigana waxbaha ku mashquulin waxyaabaha liito ee baraha bulshada ka buuxo iyo waxyaabaha aan faa'iidada ku lahayn. hiblaayo ayaa samaysay arrinkaas, hiblaayo ayaa xiratay dharkaas. waxyaabahaas oo dhan waa wax liito. ilaahay subxaanahu wa tacaala kuma abuurin inaad ku noolaato nolosha qof kale, ee wuxuu ku abuuray inaad ku noolaato noloshaada. baraha bulshada waxaa ka buuxo waxyaabo faa'iido leh, cashiro diini ah,
iyo kuwo maadi ahba, iyo muxaadarooyin kala duwan oo kor u qaadayo heerkaaga aqooneed. Noloshaada ku dhaqan caqliga shinnida oo kale ee ha ku dhaqmin caqliga tixsiga oo kale. Shinnidu waxay ku degtaa mar walba ubaxa, tixsigana meel walba oo xun ayuu cagta dhigaa. Raadi wax jilcinayo qalbigaaga, sababtoo ah qof walba qalbigiisa ayuu wax ku yahay. Sidoo kale raadi wax caqligaaga iftiin u shidaayo, waayo caqligaaga waa hubkaaga. Saxaabiyadda kuma dhahayo aniga quruxdoo dhan jaahil ka noqo oo ka dheeraaw isqurxinta iyo iscarfinta, laakiinse waxaan ku leeyahay aqoontu waa wax gooni ah, waalida iyo maalayacnigana waa wax kale oo gooni ah. Sidoo kale kuma dhahayo ku noolow adduun ka duwan adduunkan, ee waxaan ku leeyahay wax walboo aan faa'iido ku lahayn waxay fasaadinayaan naftaada. Ku xirnaanta iyo danaynta dadka hammigooda uu yahay adduunka oo keliya waxay ku dhigi doonaan aakhiro beel, waayo waxay ku horseedayaan inaadan raalli ku noqon qadarka Alle. Dadkaas hammigooda waa adduun oo keliya, wax hammi ah kama lahan aakhiro. Noloshooduna waa sida aflaan la soo bandhigayo, sida inay tahayba nolosha ugu wanaagsan. Markaasna waxaad dareemaysaa qanacsanaan la'aan markaa aragto iyagoo haysto wax aadan haysan adiga. Dadnimadeena wax ugu xun ee dilo waa ku dayashada iyo daawashada dad aan noloshooda wax tarin. Taas waxaa ka sii xanuun badan dadkaas inay ku ilowsiiyaan xikmadda iyo sababta uu Allah subxaanahu wa tacaala kuu abuurtay. Waxaad tahay saxaabiyad, Allah subxaanahu wa tacaala ayaa kuu doortay islaamnimada, ee ma ahan waxaad dooratay adiga. Allah subxaanahu wa tacaala ayaa kula jeclaaday inaad muslim noqoto, ee ha ku ciyaarin oo ha dayicin jaceylkaas, si ah nebigaaga Muxamed ah sallallahu calayhi wasallam jannada ugu weheliso. Ee ha ku ciyaarin oo ha dayicin jaceylkaas, si ah nebigaaga Muxamed ah sallallahu calayhi wasallam jannada ugu weheliso.